السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كوبعية سوفتوير كورسكيني عصوبان وسعودي. عشركن waxaan u marayaa casharkii shanaad ee practicalka ahaa. Casharkan waxaan ku baran doonaa sida loo record gareeyo supplierka ama vendorka waxa loo yaqaano. Supplierka waa ninkan alaabta noo keena aan alaabta ka soo iibsano. Saan u record gareysan lahayn waa inuu ku record gareysanaada saad ula socodsid dhaqdhaqaaqiisa ama alaabta ku keenayo iyo codsigiisa waxa soo dhan saad ula socodsid waa ninkaas ku record gareysanaada. marka casharkan aan dhinaca practicalka u leexano barnaamijkan iska soo furano casharkan waa cashar iska fudud aad uma adka marka dhinaca practicalka u leexana softwareka kusoo dhawaada casharkan barnaamijkan markaan u soo leexano waxaanu tagaynaa markaan vendor ama supplier diiwaan galiyayno waxa laga tagaa halkan vendors kala tagaa tan waxa laga sii tagayaa vendor center baa lagu dhifanayaa markaad ku dhifatid shaashadan ku soo baxaysa then aan iska weynaysiino maximize ka dhahno halkan cad baanu right click ku dhifanaa then waxaan ku dhifanaa new vendor ama new supplier vendor iyo supplier isku midba halka waxaan ku diiwaan gashanaa magaca supplierkeena ka soo qaad waxaan diiwaan galiyeynaa Horyaal company baba wax noo keena ka magaciisa ku diiwaan galiyeynaa xaggan haduu email leeyahay phone-kiisa fax-kiisa waxa soo dhan adoo daatada ku buuxsanaysa dad u baahan tahay waa iska dhaafay laakiin address-iska xaafadu ku nool yahay adigu waxa soo xaafadu ka shaqeynay waxa soo dhan halkan diiwaan gashaysa halkan payment-igan u soo leexanaya payment setting ma ku dhifanaya tan halkan waxa laba meel baa ugu muhiimsan credit limit iyo payment term. Credit limit waxa tahay inta xaddi uu amaahin karo ninka supplierka marka supplierka deeman ka soo qaadan kara marka xaddiga ugu sareysa aan ka amaahan karo baa halka ku qoray ka soo qaad $5,000 way amaahin karaa marka shanta haduu dhaafiyo barnaamijku markii uu sheegaya shanta way dhaaftay buu dhahay saan hadoo iskaga bixiyo wixii deen ugu leeyahay halkan waxa ku qoranayaa payment term hada discount ka qaabka discount u bixin doono marka discountku wuxuu leeyahay terms kala duwan hadii aan 10 cisho hada discount-ka koowaad hada 10 uu horeeya aan ku soo bixiyo lacagtan deynta waxa leeyahay 1% discount hadii kalena net xilgaan dhiibay 3 cisho marka 3 cisho baa la iga sugayaa hada 10 ugu horeeya ka soo bixiyana 1% baan helaya marka ka soo qaad discount-kaas kale uu siiyay ninka supplierka hakana waa discount-kii marka okay baan address-ka info baan iska tagayaa then okay baan iska dhahayaa saas hadda ku diiwaan gashaday xogtii ninkii vendorka supplierka marka saas ku diiwaan gashay ka halka diiwaan gashaday Horyaal company marka hadda mid kale rabana right click dhaya new vendor baan dhahayaa saas oo kalaan uu hagaajinay marka information-kiisa ka halkan ka soo muuqata terms-ka ama discount-ku siinayo hadii discount ka faa'iideysan waa saas marka casharkeena wuxuu kusoo gabagaboobaya sidaas vendor loo diiwaan gashanay marka casharkeena soo socda la soco kas faa'iideysa casharadeena quickbook ka baxa waa casharo ka kooban oo si fiican loo diyaariyay oo nin professional diyaariyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.